waxaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in markii ugu horeysay uu ka bixi doono dagaalka Iran muddo 2 ilaa 3 toddobaad ah marka ay xaqiijiyaan in nidaamka ka jira dalkaas uusan dhisin doonin hub nuclear ah sanado badan. Trump ayaa sheegay in inkastoo Iran ay ka barayaan in heshiis la gaaro haddana in heshiiskaas uu dhacayo in kale aysan waxba ka bedelin jadwalka Mareykanka. hadalkan uu ka jeediyay xafiiskiisa Oval Office ayaa ku soo beegmaya ka hor khudbadda qaranka ee uu Trump ka jeedinayo maanta oo Arbaca ah magaalada Washington oo ku saabsan arrimaha Iran. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in dalkiisu uu leeyahay rabitaan lagama maarmaan ah si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan Mareykanka iyo Israa'iil waase haddii la fuliyo ayuu yiri dhowr shuruudood. dhankan kale madaxa guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iran Ibrahim Azizi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ugu hanjabay Donald Trump kuna yiri marinka Hormuz hubaal dib ayuu furmi doonaa laakiin adiga kuma furmi doono isagoo uu tixraacaya xanibaadyada Iran ay saartay marinkaas muhiimka ah ee sababay inuu kor u kaco qiimaha tamarta ee Israa'iil iyo Iran ayaa wali isweedaarsanaya xalay oo dhan weeraro iyaga oo dhaawacyo laga soo sheegay duqeymo ka dhacay duleedka Tel Aviv sidoo kalena markab booyad ah ayaa la sheegay 2 gantaal in lagu dhuftay xeebaha Qatar halka nin uu ku dhintay Imaaraadka Carabta iyadoo wadamada Khaliijku ay wali wajahayaan weeraro kaga imaanaya dalweynaha Iran.